Akadeemiyad Goboleedka afka Soomaaliga ayaa kulan ku saabsan sida ugu wanaagsan ee loo gaarsiin karo ubadka Soomaaliyeed afka hooyo. Waxa ay la qaadatay qaar ka mid ah dhalinta ku dhaqan Gobolka Banaadir. Kulankan oo loo qabtay xarunta Dhaliyarada Gobolka Banaadir ayaa waxa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Gobolka Banaadir, xildhibaano, aqoon-yahano iyo waliba marti sharaf kale oo lagu casuumay ka qaybgalka kulanka. Gudoomiyaha ururka Dhaliyarada Gobolka Banaadir, Cabdikaafi Maxamuud Makaraan iyo waliba Maxamed Daahir Afrax, gudoomiyaha Akadeemiyad Goboleedka afka Soomaaliga ayaa soo dhaweeyay kulankan iyagoona ka hadlay muhiimadda tababarkan uu u leeyahay dhalinta ku nool Gobolka Banaadir. Akadeemiyadda runtii waxaan ka codsanaynaa mar walba in dhalinyarada fursadahan oo kale la siiyo si ay wax badan ugu ogaadaan taariikhda dalkeena Soomaaliya. Sababtoo xitaa annaga dhamaanteen waxaan dhalanay burburkii kadib qafaad ma jirto runtii oo ka sheekay karta ama taariikhdii birsimaadkii Soomaaliya waxyaabihii la jireen qof sheegi karta damalaha. marka waxaan rabnaa fursadaas inaan ka faa'iideysano dhalinyarada Gobolka Banaadir. waxa weeye waa markii labaad baan u maleynayaa Gobolka Banaadir marka la yiraahdo. hore waxaan sidaan oo kale ku kulannay aqoon wadaag ama cashar bixin haweenka Gobolka Banaadir siiba muxuu ahaa gabdhaha saxaafadda ku jira oo saxafiyiinta oo aanu tababar aan ku siiyay xarunta Gobolka Banaadir ay gacan ka geysanayeen ururka haweenka Gobolka Banaadir. Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Gobolka Banaadir, ayaa isna kulanka ka sheegay in ka maamul ahaan ay rajeynayaan in kulamada noocan oo kale la joogteeyo si dhalinyarada Soomaaliyeed wax badan looga fahansiiyo afka Soomaaliga. hadda runtii waxa fursad noo ah dawladda intay joogto in manhajtii waxbarashada dib loo cusboonaysiiyay. annaga kuma baran af Soomaali laakiin dalxa iyo dadkii ka horeeyay af Soomaali fursad u helaan. marka dhalinyarada hadda jooga fursad kale ay haystaan iskuulaadkii dib looga bilaabay in af Soomaali wax lagu barto. marka ayadana fursad kale noo tahay maamulka Gobolka Banaadirna inuu muxaadarooyinka noocan oo kala ah xoojiyo oo uu idinkaga faa'iideeyana waa rajeynaa oo aan sii badino hadduu alla idmo. xildhibaan Maxamed Cumar Dalha oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo soo gabagabeeyay kulanka ayaa dhankiisa sheegay in loo baahan yahay in goobaha waxbarashada dalka loo adeegsado afka Soomaaliga si uusan u baabi'in. luqaduhu haddaanan la adeegsanin way baaba'ayaan sida luqado fara badan ee adduunka u jiri jiray oo Hindo Europa luqadihii ee ayaga carabta berigii hore lagu wada hadli jiray Caad iyo Thamuud waqtigooda waxyaabo fara badan oo Mesopotamian markii la xadaarada loo baxo waqtiga oo ciriiri awgi ma si dheerdheerayn karo ayaa luqooyin fara badan oo adduunka jiri jiray oo baaba'ay baa jiro.